qodobada qarsoodiga ah ee Leo Andre Messi ku daray heshiiska Paris Saint-Germain oo banaanka la soo dhigay waxaa shaaca laga qaaday mid ka mid ah qodobadii uu Leo Andre Messi ku daray heshiiskiisa ugu soo biiray kooxda Paris Saint-Germain xagaagii hore. koobka adduunka ayaa 20 bishan ka bilaaban doona dalka Qatar xilli kulamada heerka kooxeed ay yihiin kuwa aad u badan. ciyaartooyda ayaa wax kasta u sameynaya sidii ay iyagoo diyaar ah uga qayb gali lahaayeen loolanka koobka adduunka ee ka bilaaban doona wadanka Qatar ee khaliijka. mid ka mid ah cabsiyada ugu waaweyn ciyaartooyda qabaan ayaa in dhaawac ka hor maalmaha tirsan ee koobka adduunka ka haray, iyadoo haatanba magacyo waaweyn la xaqiijiyay inay seegi doonaan tartankan weyn ee koobka adduunka. Messi ayaa doonaya inuu dhaawac ka hortago oo uusan halis gelin, waxaana wargeyska TN sheegay haatan in heshiiska Paris Saint-Germain ku daray inuu muhiimada koobaad xulkiisa Argentina siinayo bedelka uu siin lahaa kooxda Paris Saint-Germain. taas ayaa la micno ah in Messi haatan la nasin karo kulamada soo socda ee dheelayso kooxda Paris Saint-Germain. kadib markii uu ku soo guuleystay koobka America, Messi ayaa doonay inuu koobka adduunka oo midkiisii ugu dambeeyay ah si weyn ugu dagaalamo, maadaama koobkan uusan weligiis ku soo guuleysan. laacibkan uu aad u jecel yahay inuu ku guuleysto koobkan maadaama uu xiiso badan iyo xamaasad badan u qabo in koobka adduunka ee sanadkan ka qabsoomi doona wadanka Qatar ee khaliijka. saaxiibayaal, laacibka Leo Andre Messi ma leeyahay in awood uu ku qaado sanadkan koobka adduunka, asagoo ognahay da'diisa inay tahay 35 jir. laacibka reer Argentina ee lagu magacaabo Leo Andre Messi oo rajaynaya inta ka dhiman bishan inuu kursiga keedka ama gurigiisa joogi doono, maadaama uu ku daray heshiiska ugu soo biiray kooxda Paris Saint-Germain in uu xulkiisa uu siin doono muhiimada koobaad. hore ayaa loo yiri bakti ma bulaalo. marka Messi Paris wuxuu ka dhigay bakti aan koobka Champions League ku guuleysan doonin. taasna waxa uu sameynayaa sidoo xulkiisa ugu guuleysto koobka adduunka sanadkan dalka Argentina uu ka tago koobka lagu ciyaari doono wadanka Qatar. saaxiibayaal, wararkeennina intaas ayaan kusoo gabagabeynaa.